TPLF waxyaabahan ma taqaanaa ee uga soo joognay ee ugu waaweyn tacaddi ay dadka u geystaan iyo caburinta ruux uusan ma taqaanaa xor baa u ahayn isbedelkii ka bacdi inta isbedelka la helay waa la dareemi karaa TPLF kulli annagu dhibaatadeeda iyo wixii ay samaysay waanu soo aragnay mana sacbatumayno mana doonayno kamana baqayno isbedelka hadda jiray ee la haystay muddada 3 sanaana inuu taaba galo oo isu sii bedelo oo uu lugihiisa ku sii taagnaado oo uu ma taqaanaa halka uu maanta taagan yahay oo ka sii socdo yaan ma taqaanaa ka rajo qabnaa TPLF waxyaabaha ay ma taqaanaa dadkan soo biday waa cid kasta oo shacab ah oo si fiican u fakiraysa ama wax fahmaysa ama aqli u saaxiiba way garan kartaa inaad hadaf yeelan weydo ama aad qorshe yeelan weydo runtana aad arki weydo ma ah beentuna way caddahay runtuna way caddahay haddaan ka hadlo dhibaatooyinka ay soo geystay TPLF ninkii walaalkii intii la dilo walaalkii oo mid uu soo dul istaago lagu yiraahdo car ooy oo waa waxyaabaha ugu daran aan xasuusto weeye walaalka oo mid ah oo aad ma garanaysaa aadan sheegin karin dafiri waa dhibaatooyinka ugu darnaa weeye dhibaatooyinka ugu daran ma garanaysaa TPLF aan kala kulmi jirno waxaa ka mid ah aragti xuma macnaha yaa ku haysa ruux xisbi malihid waxyaabo noocaas oo aan la soo koobi karay marka TPLF waxa weeye maanta inay dib noogu soo noqoto mid aan soo dhaweynayna maaha dhammaan deegaanka iyo dalka waxaan ka codsanaynaa dhalinyarada ku nool inaan si wada jir aan uga hortagno nimankaas waad ogtihiin dhibaatada ay dalka iyo deegaanka u geysteen marka waxay la qaban in shacabka ma garanaysaa deegaanka inay ayaguna kaalintooda ka geystaan sidii looga hortagi lahaa TPLF annagoo ma taqaanaa u soo joognay waxyaabo badan oo tacadiye ah meyd la jiido dadka xabsiyada lagu guro dadka oon hadli karin gabadh fallo fara badan oo ma taqaanaa dalka ka soo dhacay maanta waxaa la dhihi karaa magaaladu qabri dahare khaasatan deegaanka oo dhan uu fiican yahay laakiin magaalada qabri dahare marka la eego maanta way camiran tahay macaaradii maxaafid waa la dhex joogaa ruuxa hadalkiisu xor yahay haddana aanu hadlay xataa aanu ciidamo soo khasbin aniga iskay si xorriyada ma taqaanaa ugu hadlay shalay waa la khasbi jiray waan garanaynaa waxa jiri ar hadal bay ahayd wax kala aaminsan tahay marka waxyaabaha ugu badan ee isbedelka laga helay waxaa ka mid ah inuu ruuxu hadalkiisa uu xor u yahay maskaxda xor ka yahay fakiri karo noloshiisa ma taqaanaa qaabku uu horumari lahaa iyo qaabku ma taqaanaa wax uga bedeli lahaa uu ka fakiri karo TPLF waxay geysatay dhibaato aan la sheegi karin dhaqanka iyo dhiigga nafta markii la yiraahdo xabsiga dhaqan bixinta intaba way geysatay intaba qayb wayna ka geysanay ma jiro dhaqaalaha nooc walba ka geysay dadkaas waxa weeye waa dadka ma garanaysaa dadka shacabka ma garanaysaa aragti xumada ma garanaysaa ku sheegi jiray weeye dadkuna isku fikir ma aha ninba fikir buu leeyahay ninba si xun buu u fikiraa ninna si fiican buu u fikiraa qaar bay la quman tahay sidan inay ma garanaysaa TPLF soo noqoto qaar baa iska ilaawayba dhibaatadii ma garanaysaa ay noo geysatay TPLF waxaan dhihi lahaa si dadkan ay ku midoobi lahaayeen cadowgooda runtaa la tuso markii cadowgooda runtaa la tuso ummadda dalka iyo deegaankaba ma garanaysaa si dhab ay ku midoobayaan cadowgoodii bay arkaan waxaa weeye intaan aragna hal la tuso cadowgooda baan leeyahay sidaasaa lagu midoobi karaa baan u leeyahay aragtideeda